shaqeynin yani ma dhidin afar la saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen lacagtan la yiraahdo crypto waa lacag cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay waa lacagahaas badan gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqada ma dahabkii la yaqeenina ma waxa la yiraahdaa digital currency la yiraahdo ama cumlaat raqmiya al-cumlaat raqmiya carabiga lagu yiraahdo lacagahaas badan gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen waxa looga maarmay taakooyinkii ay bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto mudan gudoomiye saddex qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas midda koowaad waa investment qofka inuu sameesto maalgelin oo lacagtiisa maal gashto dad badan hadda waxa jira lacagaha ku haysta bangiyada halka dollar bangiga dhigato 10 sano kadib halka dollar ku yaal laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gashato lacaga waxa jiro oo kriptada ah waxa ugu weyn oo hadda aabo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 ay joogtay halka bitcoin macnaha qofkii ka maal gashan lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadno $1 oo 1000 xabo ah sanadkan halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halka bitcoin wuxuu gaaray $70,000 macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay computerka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxa haysataa $70 milyan kunkii xabo oo halkii xabo 70,000 waa 70 milyan ma shaqeynin yani ma dhidin afar la saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen kaliya waa investment ina suuqa maal gashato mudan gudoomiye lacagahaas investmentiga ah meesha ugu yar hadda ka sheegnay waa $1 ninka 10,000 gashan lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneer oo soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneer noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye laga ma sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneer yihiin mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa يعني waxyaalaha kale oo suuqa uu ku fiican yahay waxay tahay hadda bangi marka tagtay 10,000 isii marka dhahdid 100,000 haday kugu jirto 10,000 isii hadaa dhayd 2 bir kadib isoo noqon kulay ma helaya macna laakiin saacad kasto iyo daqiiqad kasto ayaa waxaad la soo bixi kartaa ama lagu soo diri kartaa milyan iyo wax ka badan adigana aad diri kartaa lagu soo diri karaa waana diri kartaa macna wax ku celinaya ilaahay uun tamale kaliya waxa u baahan tahay internet waxa u baahan tahay computer ama telephone iyo waxa u baahan tahay lacagtaad maal gashanaysa kaliya mudan gudoomiye markaan investmentiga meeshaas ugu baxo wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex ka amal yani suuqa markuu kacana inuu gato markuu soo raqiisoobana iska iibiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkood 10,000 20,000 hadba waxay haystaan inay suuqa geliyaan daily trader Allah subax inuu soo kaco qolkiisa jiifku ka soo kaca qolka la ku dhigano computerkiisa bas uu tagaa sidoo u soo xiranaysa inuu nin shaqeyn rabo amal ah shaqana uma socdo computerku ka dhax shaqeyn rabo macna 10kiisa kunuu la galaa suuqa aqoon iyo xirfad ay ku dhisanta suuqaas waxay ku dhisantaa xisaabaad la yiraahdo algorithm ay ku dhisantaa ma aha gambling ma aha sida wanexbitko kale laba kooxda weyn ayaa markasta saadaalna inay badinayso meeqa dhacdo marka kooxda yar inay tunto kooxda weyn ay ka badiso gambling way taas macnaha waa baqtiya nasiib tan laka baqtiya nasiib ma waa aqoon ay ku dhisan tahay xirfado la isticmaalo way xirfadaas soo baranay youtube-da ku jiraan ayadoo ingiriis ayadoo carabiya luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furma fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed gareeya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la bay gareenayo waa bay gareenay adigna waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqi uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1 wadatay iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi
وكلا بحي واسك إيبنه فرق مركب فائدة وحيتها هاي أنت جلسي إيه أنت أوكعي مركي لك على جرو فائدة أنت سوا دينيا حرام معها تصالحان باورا كسو إبستي دبي $5,000 كسو إبستي حمرا كنتي شنت كون مجوجاي طبعا كنا لقاسينا مركي لك على جرو مركب فائدة ماشي كسو بحي سوا فائدة أذيك على هذا وتريد واي وأنا يعني البيع والشراء وجهك سيد حد مدن قدومي ووجهك هذا كيس كان له تاجيه وصرفات قفك إنه كسر في العقد وحجرته ضد بدن أو ملايين هيستو الدنيا ذي جو لكن أنا لسفر كريم أنا سوق هذه كريم أو حمر لي ما كريم العقد لما أقوله صادرت هذا العقد وقبنا تصالحان دبي جوكتا هالملينا هيستا العقد وقبنا درهم أبدله درهم مركب أبدشيد وحاجين بنجيدا أو USDT دان استعماله بين السيا جرو شركة أقوين أكون كذا كشوانه وحوبها أنت كلي إن أكون فرطة فرفايدنا أكويا أو كي ويسيجا قليقان أنت بس أوبها أنت العقد هذا لسه تجي مرك أنت اللي ماني حمر ديارة صور عادي ملينا تلفون كودتا عدكو باري سمالة عدكو دبص عت مالة عدكو ربطنا مالة دولتكو دبقلي سنة مجرد أدان ترى سكشن ما أنت كنت نكون سمايو دولتي دبكعي صور ده كنت كان أنت أود أنت كاجت من سؤال اسكو يدينا سمجرد marka dad waxa jira marka Soomaaliya aad loo fahmay lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rabaa marka USDT oo ah halka USDT waa $1 u dhigma stable coin Allah ma dhaqaaqdo macna halka USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuqa lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuqa rabaa inaan galo ma helaya marka xamar uu jooga adaa ka saacidaysid 100,000 waalidkiisa ugu diray asiga lacagtu hay kaashahan bangigaaga caadiga salaam bank ama wuxuu kugu diraa premier bank lacagtaadi caadiga USDT maxaa haysataa ayadoo caadi ah akoonkaaga kugu jirtaa saasay tahayna waxa saaran lacag sarifaada oo $100 $3 $4 faa'iidana waa haysataa lacagtaada originalkana waa haysataa marka waxaan rabaa in maxkamaddu saa u fahantay audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency waxa la yiraahdaa saas waa